kulankani waxa uu ahaa mid aqoon isweydaarsi ah iyadoona agaasinkiisu ay lahayd ururka Somali Voice ee ka dhisan dalkani Turkiga waxaana marti ku ahaa aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee caafimaadka ka shaqeeya kuwaasoo dhidabada u aasay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxayna kala ahaayeen Professor Dr. Ismaan Maxamuud Dufle ahna senator ka tirsan aqalka sare Professor Dr. Maxamed Maxamuud Xasan Dr. Bidaya rektorka jaamacadda Banaadir Professor Dr. أحمد يوسف الجوليدا بروفيسور دكتور حسن حاجي محمود شرع arrimaha caafimaadka dalkeena iyo waliba marxaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa diiradda si gaar ah loo saaray waxayna ka soo qaybgalayaashu u badnaa arday barata caafimaadka waxayna markaasi ay weydiinayeen su'aalaha ay qabaan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga mudane Sheekh Maxamed oo barnaamijka furay kadib ayaa hadallo qaatay aqoon-yahanada barnaamijkani loo qabtay dhaqaatiirtu waa dadka elite ah ee dalkaani meel ka soo joogaan waa dadka mataqaana aqoon iyo cilmi iyo maskax dadka ugu badan weey maxaa rabaa marka hadda dalku waxa way burbur dhib ku jira maxaa keenayo dadka elite ah waxay ka leexdeen inay soo hordhigaan inay dadka hogaamiyaan inay dalka wax u qabtaan marka waxa weeye runtii waxaan leeyahay dhalinyarada meesha fadhisa oo hortayda fadhisa oo runtii aan ku baraarujinaya oo aan macnaha ku wacyigelinaya inay dadaal badan suubiyaan in dalkii dib loogu soo laabto in aqoonta aad ka kasbanaysaan meelahan inaad dalkii ku soo celisaan si dalku u hormaro dalka la yiraahdo Singapore waa magaalo yar weeye magaalada yartahay waxa weeye magaalo ka mid ah dalka Soomaaliya ayay badahan la egtahay laakiin waa dal hadda adduunka marka laga fiiriyo transparency iyo aqoonta iyo ay ka jirtaa meel fay ka jirtaa aqoonta wuxuu ku saleysan yahay baahida markaasi suuqa ka jira in aqoon ku soo saaraan maanta markii baahi suuqa ka jiro barnaamijka isaga ahi ayaa waxa laga soo bilaa daraasad baahida waxa laga soo bilaya in aqoon loo bedelo in jaamacadaha dadkii lagu tababaro in dadkii loo sameeyo aan loo hormariyo kunti waxa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad waxa weeye aad u sareeya waa dad aqoontooda fiican tahay waa dad maskaxdooda fiican tahay weeye waa in loo jeeyaa aqoonta aad baranaysaa wax badneed ku nooleed Turki ku nooleed taas farxad weyn gelinaysa waxaan mahad ballaaran u celinayaa Somali Voice oo soo abaabushay qabanqaabada inaan is aragno community-gan ardada u badan ku nool wadankan waxaan kaloo mahad u celinayaa jaaliyadda oo maalin dhaweed nagu casuumta xafiiska ayadana fursaddan kaga faa'iideysana inaan mar labaad aan mahad uga celiyo sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen halka kan iyo wanaagii aan kala kulanay shaqada fiican ee community-ga wadankan ku nool u hayaan haddaan intaas ka soo gudbo wax badan haddaan idiin sheegaan ma hayo maxaa yeelay dadka iga waaweynaa ayaa hadlay marka haddii hadle kama wado da kama wado mansab ahaan ka wadaa gudoomiye jaamacadda iyo senatorkii diinkii muxuu ahaa postgraduate schoolka hadduu hadlay marka wax badan oo yahay male taariikhda waxbarasho ee soo martay Soomaaliya iyo intii ka dambeysay burburkii kadib intaba muxuu ahaa waa la sheegay marka kaliya nuxurka wuxuu yahay fariinta aan idiin soo gudbinahay waxay tahay in aad isku duubni inaa muujisaan waxa lagu gaari karo waxa weeyaan isku duubni waa midda koowaad inta markaa xuso kama marneen riski xoogan ama khataraha la soo maray laakiin waxa ka weynaa hadafka la higsanay higsigeena muxuu ahaa inaan dhaafno jiil aan dhaxalkaas aan reebno kaas oo ahaa anaga targetkan objective-ka ah ugu muhiimsan saas awgeed waxaan ugu dhacay dhibaatooyin aad u badan laakiin wiiqin nama yani habac nama gelinin waxaa ka mid ah wax xasuusataan dhacdadii xanuunka badneed masiibada weyn ahayd ee ka dhacday dhacdadii masiibadii qarxii
maxaa ay tashaamu ardaydii qalin jabinaysay qaarkiin waa soo gaareen inkastoo ay yaryaraayeen waxayna dhacday dhacdadaas 3 December 2009 dhacdadaas waxay ahayd qalin jabin oo yani kulliyado kala duwan jaamacadda Banaadir ah oo yani medicine engineering IT yani computer science waxaas oo dhan ay ahaayeen marka qaraxaas dhibaatada geystaa dhacay oo ku hobteen dad badan oo kamid yihiin maaragtay macallimiinta jaamacadda mas'uuliintii waaweyn oo waxaa kamid ah gudoomiyihii jaamacadda Professor Shahiid ala socotaan iyo macallimiin kale iyo mas'uuliintii waaweyn ee siyaasadda marka yani oo ka tirsanaa jaamacadda Banaadir yani asaaskeeda kamid ahaa oo ogtihiin oo odayaasha waaweyn oo ahaa wasiir ahaa laakiin dhacdadaas ujeedada ugu leeyahay waxay tahay marka nama hakenin maxaa yeelay halkii aan kasii ambaqaadnay sidii yani dad badana weliba ku dhaawacmay oo ku dhintay dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa oo haddana la joogo rektorka jaamacadda Professor Biday nasiibulaahi qofkii markaa meesha fuula qurbeynayay anigoo ahaa wax badan ayaa laga faa'iiday waxaana la isku afgartay in kulamada noocan ah oo kala ahi la badiyo si bulshada ay ula socdaan xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal Istanbul.